Ururka u gargaara dadka dhimirka wax ka qaba ee Somaliland Mental Health Support Organisation ayaa shirweynihiisii sanadlaha waxa uu ku qabsaday magaalada London. Shirkan oo ay kasoo qayb galeen dhammaanba jaaliyadda reer Somaliland ee waddankan Ingiriiska, howlwadeennada organisationkan ayaa waxaa kasoo qayb galay sidoo kale safiirka Jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya cariga waddankan Ingiriiska, culimaadudiin, guddoomiyaha jaaliyadda SSUK iyo aqoon-yahan iyo waxgarad kale oo aad u fara badan. Munaasabadan ayaa waxaa lagaga hadlay laguna soo bandhigayay ururka waxaa ilaa iyo iminka u qabsoomay iyo qorshayaasha u dejisan sanadka soo socda ee wax kaga qabanayo cusbitaalada iyo dadka ilaahay uu xuskoodii ka qaaday. Hadaladii dadkii halkaasi ka hadlay oo ugu horeeyay safiirka Jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya cariga waddankan Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa marka ogbaad waxay joogtaa initiative-ka waa kan imika King's College aan ku caawino oo dhaqaatiirta imika qalin jabisaan ku caawinayno, laakiin initiative-yada maadaama caafimaadku yahay runta dhibaatooyinka ugu waaweyn oo waddankeena imika ka taagan, ama ha ahaato mental health ama siyaalo kaleba ha ahaatee, runta mission ahaan waxaan rabaa inaan commitment-ka ah inaan waxaan ka qaban karno inaanu ka qabanno. marka ogbaadna la soo xidhiidha si ay initiative-ka waliba wixii London ayna kaga caawiso. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo ah walaalkii Naasir Ciise Geljire, guddoomiyaha ururka Somaliland Mental Health Support. waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan dadkii sharafta lahaa ee maanta ka soo qayb galay shirkii ahaa sanadkii annual meetingii oo kaasoo ururka Somaliland Mental Health Support ay ku kulmeen, kaasoo ay ku falanqeynayeen waxyaabihii u qabsoomay, waxyaabaha u qabsoomi doona. maasha Allah, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay magaalooyinka Bristol, Cardiff, Manchester, Sheffield, Birmingham, London. waxaan u mahadnaqayaa dhallinyaradii sida fiican u soo abaabulay. waxaan leeyahay ummadda reer Somaliland qof kasta meel kasta joogo, dadka ducafaaga ee masaakiinta inay wax u qabtaan oo ay caawiyaan. waa mahadsantihiin dhammaan. u gargaara dadka dhimirka ka xanuunsanaya Somaliland. waxaan u mahad celinayaa magaaladeedii Manchester oo ahayd magaalo aad iyo aad ila shaqaysay, gaar ahaan dhallinyaradii kala qayb qaadatay xilligii aanu ururka ka bilaabanay magaalada Manchester, maqaaxiyaha, tagsiilayaasha, hooyooyinka, odayaasha, cuqaasha, dhallinyarada, qof kasta oo reer Manchester aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd. shirkan maanta halkan la iskugu yimid magaalada London waxa weeyaan shirweynihii waxaan ku raahdaa charity-ga ee sanadlaha ahaa. alxamdulillaah si fiican buu u qabsoomay. waxyaabo fara badan oo maxaan ku raahdaa charity-gu wixii uu soo qabtay iyo insha Allah wuxuu hiigsan doono iyo maxaan ku raahdaayay caqabadihii ka hor yimid iyo siduu uga dabaashay waxa ku saabsan ayaa maxaan ku raahdaa halkan laga wada hadlay. alxamdulillaah. gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa goobtaasi lagu guddoonsiiyey shahaado sharafiyo xubnihii sida hagar la-aanta ah ee volunteerka ama mutadawacnimada ugu shaqaynayay organisationkan Somaliland Mental Health Support, iyada oo halkaasi dadkii ka hadlay dhammaantoodba ay soo darxiyeen ama ay soo bandhigeen ahmiyadda ay leedahay in loo gurmado dadka ilaahay xuskoodii ka qaaday. Yaasiin Faarax Jees, telefishinka Ariel, magaalada London.